su-aasha kale waxa weeye walaalaha qaar soo weydiiyeen gabarba waxay tiri nin baan jeclaaday maasha allah ninkaan jeclaaday imuu jeclaan wuxuuna yiri waa iga yar tahay ama saana tahay anigu kuma rabi iga tag waana jeclaaday si daacada sa u hilmaami karaa wiiliyow gabar jeclow aan ku jeclayn ama gabadh yahay wiil jeclow aan ku jeclayn horta qof aan ku jeclayn qiimo kuma lahan qodobkana waa ka hadli doonaa jacaylka ku dhisan dhaqanka iyo guurka ku dhisan dhaqanka iyo guurka ku dhisan jacaylka is dooritaanka laakiin qof aad jeclaatay aan ku jeclaan rabtid marka inaad qalbigaada ka jirtid sida uga jari kartaa uga nasan kartaa awalan salaatulayl wallahi qisa cajiib waa nin fundiya hadda koor qisa cajiib waa salaatuleylka waa mucjisooyin badan bay sababtaa nin baa waxa dhacday nin fundiyo ah miskiina marka maalinta waxa looga yeeray nin boqor ahaa oo magaaladiisa xukumay gurigiisa meel kamid inuu hagaajiya loogu wacay inay yani hadii alla kuurayo uu soo hagaajiyo ninkan fuudigaana haweenay ayaa kaliya dhashay oo ilaalsata oo guri isku la nool yihiin hooyadiis oo duq ah ninkii markuu meesha hagaajinayay de isha hadaan xumaanta laga ilaalin xumaan bay ku sababaysaa wuxuu arkay boqorkan guriga u dhisay gabar uu dhalay oo qurux badan ayuu isha ku dhuftay uu jeclaadayba qalbiga loo tagay ninkii guriga ku soo noqday hooyadiis waa sakaraad baan waa xanuun jacayl buu sakaraad la noqday hooyo markaas dhakhtar kasta hooyo way maamadii dhakhtar kasta ay tagtay meel badan bay tagtay wiilkayga kaliya daaway waa dhibaato adiga daawada waa la waayay wiilkayga maxaa ku haysta bay tiri hooyo ama waa dhimanaya ama boqorka ama hebel wala yaqaan gabadhiisaas aan jeclaaday iito ama waa dhimanaya wiilkuna waa nin fundiga lacag ku soo naftiisana ku dabiiba hooyiisa ku dambiiba ku biila waxay tiri bal waa sameynaya bal waxa la soo dhaw haweeneyda darajo go'san nin boqora gabadhiisa siinay nin fundiya iyadoo ka rajo go'san bay soo baxday xaafadiisa soo gargaray guriga Allah maxaa guriga baa loo amray waxa la yimid qof caawimaad doonayo waa laga furay oo la soo galiyay waxay tiri waxaan rabaa gabadhii heblaaye ahayd baan rabaa ana jeedad dan gooniya ka leeyahay waa soo baxday ma gabadhii buu tiri waxay tiri intay horteeda ku eeday hooyo wiilkayga kaliya aan dhalay ii badbaadi maxaa dhacay aduu ku jeclaaday suu kugu helinay dawada xaaladda duruufta waad garanaysaa ii badbaadi wiilkayga gabadh aqli badan bay ahayd dadka ilaahay diintiisa markay fiiriyaan ku dhaqmaan wax badan bay fahmayaan wax badan bay xalinayaan waxay tiri hooyo waa ka yeelay wiilkaada waa guursanaya hooyada waa farxad ma sha Allah wiilkaada waa guursanaya laakiin shardi way naxday shardigu waa maxay hooyo waxay tiri shardiga waxa weeye 40 bari oo fiirsada 40 bari salaatulayl habeen kasta waa inuu soo istaaga hal habeen uu soo qafin bil iyo 10 habeen waa inuu salaatulayl saqda dhexe soo toosa tukada ilaahay barya markaas aan guursanaya waa diyaar bay tiri taas maamada soo u sheegtay hada nin wixii soo loo sheegay Soomaa salaadu tukan jiro muu bilaabay tii waajibkaaga ku yarayd adiga salaatulayl buu bilaabay ninkii ahlu khayr ku soo biir salaatul hari habeen kasta maalintii waa iska soomaya ilaahay inuu gabadhaas siiyo janno u soomayaan gabar bay u soomayaan qaarkood noogta waxa dhaxday ninkii wuxuu yiri hooyo waa markii muddadii la gaaray oo 40kii bari dhamaadeen ayuu yiri hooyo waan caafimaaday waxay ahayd gabadhaan ma barreebay waa manacay waxa naga wada maxaa falana hooyo waxaan xanuunsanay ma yiri hooyo waxaas ka qalbigay ruuxaas dhanba laga saarayba hooyo inaan aqoon baaba hadda moodaaba wana haba u soo hooyo iga daa waxaas qof anu aan rabo oo rabta aan raaysan doona mustaqbalka marka lacag helo hooyo iga daa waxaas mar rabo qalbiga ilaahay waaba ka saarayba uu soo miirsada kaana ninkii soo miirsada mooda maamadu waxay ku noqotay gabadha waxay tiri hooyo wiilkii uu igu soo hadal celiyo raaliga aho waxay tiri hooyo inta raba intaas ma barreeyeen ba guurkan waxaan ba intaas aan rabay salaatuleylka marka ilaahay bariday wasaq dhan ba ka baxaysa qof aad jecel u qaaday oo adiga kugu burburiyay waa ka baxaya salaatuleyl 3 maalmood soo bas midka jecel oo dhan qalbigu ka baxay walow boqolaal sana aad jeclay intaasoo sana aad jeclay waa wiif qalbiga waa laga tirtiraa waa laga masaxaa delete laakiin maanta oo dhan soo wad war khayrka xageed u jeeso soom 3 maalmood soom 3 maalmood soom salaatuleyl soo tug ilaahay bari qalbigaada nadiif saafi waxa wasaq mugta
waxaada aadaha ahay awoodooda laha inaha mid waa wasaq ahay sidii buu ku fiicnaad waa kaas ah taasi waa mid salaatu leylku waa mid aad iyo aad buu weynta midda kale weeye ka fogow la xiriirka asaga la xiriirisid qofkii aad jecleyd ee haddana kugu xumeeyay xiriirka la xiriirisid ka fogow xiriirka macna ka wadnaa inaad wacdi oo kaliya ma wax kasto asaga يعني حرير لا إن حرير لسميسد أما أركتد كفوجو مدة كلا ويا نيدا ذا كتر إنه كوسو النقطة كبرنا على هدي كديد مالين بكوسو النقطة نيدا ذا كتر ويلكات على نكات على إنه مالين نيدا كوسو النقطة كتر على الغياب نيدا ذا كتر وحصلا إنه كوسو النقطة كانت على نيدا ذا كسر مدة كلا ويا وحيالك لا دونكم مشكور إن هذا وحبر شجيشيد إن تشيم أديد وحيالك لا مشكور قل وحنا بابايا وحكرا مهمة تعطيسه عقليغادا شيء كلا ku mashquuli shay kala hal abuur wax kala hal abuur ama xiriir kale aad ka heshay abuur ama wax kala abuur hal shay kala hal abuur waxa waa la isku mashquulay laakiin waxa isku mashquulisay dhibaata aad iimaanaysa waxa kala sameeysaa waxaad isweydiisaa jacaylka wiilkaan aad u qaaday ama ninkaan u qaaday ama gabadhaan u qaaday asagoon ku jeclayn qofkii maxaa sababay see soo dhacay isweydii xisaab dib u fur wax badan ba ku soo baxay khalad badan oo markii hore inaan dhalayd oo markaa miirsanaysa ku soo baxaysa midda kale weeye mustaqbalkaada ka fakar waa midda kale aan kugu darayna weliga qof noloshaada farxadaada ku xiray qofka ilaahay markuu yaani qofku haduu wax jeclaado ilaahay waa ku imtixaama hada qof jeclaatid wasoo ku jecel ilaahay wuxuu ku imtixaamay inuu asagu ku jeclaan buu kugu imtixaamaya shay qofku markuu weynaysay rabbi ku imtixaama بلو في رسالة النبي الله إبراهيم ويل باودس إسماعيل يراد أد بو تعلاد مركز عليه حلي جورع ويل كبا وامتحان أد بو تعلاد ويل كيسي أو صعوني مركز عليه الجورع أبلي ويل كليه كايس دو دأمر يا هل ويل ضلي ولي الجورع كورا ودوكتي زكريا يحيى ضلي ويل بو ضلي دأ وكل ضلي بريه يتوق مو إله وهلا هي إله سو بريه ولا ولد وناكسن سي ربي يوم ما أنا مركز ندم أولاد لام بان نقريا إله ويل بوسي واليوم مجلس عيسى لو قدم صوت ضلان قفران لو مقعد يحيى وهوري يحيى وحلو مقعد كدبنا والد الهورتي لو مدح الله بشاق يهودي بدش قفكم مركو شيء تعرض له وكم امتحامه سو موجودين وليغا نلوشادا هداي فرحان نقطه هداي مروق نقطه قفنا ku xirin hadaad aamintin ninkaana farxad ku hayo nin kale hadaad haysid ma noolaan kartid waa ku dhamaatay hadaad aamintin haweenayda aad jeceshahay waa haween ku noqonayo mid kale ma aaminaysid waa ku dhamaatay weliga noloshaada farxadaada murugada qof gooniha ugu xirin rabbi baa gacanta ku haya rabbi ku xirno waa midda aan rabo inaan ku sii daro hadii alla ku ron yahay qodobkan taasaad ku hilmaamaysaa hadii qof aad jecelayd aad ku jecelayn labada qof hadii isjecelayn dawaab khayr ba laakiin qof aad jecelayn oo ku jeclaaday aad maqlaysaa hadii alla ku ron yahay gabar heblaay nin ba jecelayn wiil hebel gabar bu jecelayn weligaana ha isku guursan qof aan ku jecelayn والله دبعتها كاسو رعداday ku taal gabdha qaar waxaan arkay wadaadkaas ilaahay dartiyo jecela ninkaasan jecela wiildahay gabadhaasan jecelaad ayadana ma jecela sidoo ma jecela weligaas ku mashquul qof aan ku jecelayn weliga ha guursan adduunku aad soo rujiyo waayo maxaa yaalaba muxuu ku siinaya ma isfahmi kartaan be guurku waa isfahan isdhaafsi waay ma aha qaabka loo guursado ma lacagta la bixiyo hoteelka lagu qabtay inta ku baxday sariirta la dhigay guurku ma sida la isu fahmo iyo sida la sula jaan qaado waayo jacaylku maskaxda meesha fadhido meel yar u dhow ayuu fariistaa shay yar halka fariista way ay halka haduu si khalad u fariisto si easy ku tirtiri kartaa oo qofan jacayl mutaysan baad jeclaad si easy u tirtiri kartaa marka hawlahaas ku mashquuli xaqaas khayrka wanaaga ma sha Allah